mas-uuliyiinta dowladda hoose ee Hargeysa ayaa deeq raashin iyo lacag gaarsiiyay barakacayaal laga soo raray xerada Birjeex ee magaalada Hargeysa. Shirkadda Tawakal African Cargo ayaa sidoo kale si mutadawacnimo ugu deeqday barakacayaashaasi deeq dhara oo ay ugu talagaleen inay ka xidhaan dhaxamaha. Ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay mulkiilaha shirkadda Tawakal African Cargo Warsame Faarax Soomaali. waxa aan salaamayaan mahadnaq Ilaahay marka laga yimaado u mahadnaqayaa maayarka iyo maayar ku xigeenka. waxaan kaloo aad ugu mahadnaqayaa madaxda sharafta leh oo hogaaminaya saraakiisha sharafta leh oo hogaaminaya taliyaha qaybta 11 ee difaaca jiita hore General Dollar ayaan aad u salaamay isagana. Ilaahay maada ka gaadho waxaan anigu ugu deeqayaa dadkan maanta anagoo shirkadda Tawakal African Cargo waxaan ugu deeqaynaa laba bundadood oo xalay aan ka seexan weynay dhaxantii roobkii markii aan aragnay waxay haystay oo Mariya General Ismaaciil Faarax Awaale Dolaal oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu mahadnaqay mas'uuliyiinta dawladda hoose iyo shirkadda Tawakal African Cargo ee deeqdani soo gaarsiiyay barakacayaasha laga soo raray xerada Birjeex. halkan waxaan loo soo raray dadkii xerada Birjeex dhex deganaa barkood waxa kaloonu dad ka soo raray xerada gantaalaha ee difaaca cirka waxa wali socdo mid ka ballaaran aanu rajaynaynaa inay si dhaqsaan u raro dadka xerada Birjeex ku dhex jira dadkaasi 30 sanadood oo dhadhoobay deganaayeen wax horumar ay ka gaareen ma jiro xeradana culays bay ku hayeen iyo ciidanka qaranka iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland sidii loo aasaasay culays bay ku hayeen oo xariyo ciidanka dhex deganaayeen walina barba dhex degan kuwa dhex deganna waxa leenahay diyaar garooba waa la idin rarayaa diyaar garooba waa la idin ka rarayaa meel aad xorutiin oo wax ka dhisan kartaan oo ikhtiyaar u leediin ayaa la idin geynayaa ka diyaar garooba maayir ku xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Maxamed Xaashi ayaa sheegay in xeradani Birjeex laga soo raray barakacayaasha laga dhisi doono isbitaal isla markaasina waxa uu beeniyay in sifo kale loo isticmaali doono dhulkaasi laga soo raray barakacayaasha. dawladda hoose caasimadda Hargeysa waxa ay mar walba u taagan tahay in ay dadka jilicsan ay wax tarto waxa ogtiin iminka inaanu dadkan ka soo rarnay xeradii Birjeex dhexdeeda oo ay dadkaasi dhex deganaayeen si sharci darraan ay ku degeen meeshana laga dhisay sidoo maayirku sheegay ama dadkoo dhimaba ay ogyihiin in cusbitaal laga dhisay dawladda Ingiriisku ay ka dhisayso iyo mid ay dawladda Soomaaliland ka dhisayso iminka isaguna socdaba cusbitaalladaasina ay noqonayaan kuwa uu qaranku leeyahay waxaan halkan ka cadeynayaa social media ama dadku waxay ka hadlayeen halkii dawladda hoose iyo ciidanka qarankaba loo abaal gudi lahaa ee lagu farxi lahaa 24 saacadood gudahood baanu dadka ku soo rarnay oo ay dhul ay leeyihiin aan u keenay waxa hadaba halkan ka cadeynayaan hadalka kala maayirkaanu deenayaa waxay dadku ku leeyihiin maxaradii Birjeex baa la iibiyay aad waxaan uga xumahay xarab la iibiyay ma jirto dadkaale waxaanu ka soo dhex rarnay waa dad dhex deganaa xaradii ciidankii u degayay ciidankaale cusbitaal baa laga dhisayaa bartii cusbitaalku laga dhisayay bay sameeyeen waxaan leeyahay ka waantoobaan dadka had iyo jeer dawladda mar walba ka soo horjeeda ee mar walba wax dhigaha dadka iyo dawladda lidu ku ah la diyaara annagu waxaanu diyaar u nahay mar walba wax qabad muuqda oo waananu barbar taagnaanina hadii Ilaahay dhaado. ugu dambeyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydiid Solteelko waxa uu yidhi in Faarax Soomaali oo Cargo galay oo isaguna inagu soo kordhiyay funaanadihii iyo shayadii dhaxanta oo loo budood inoo keenay tuka badan insha Allah inoo keeni doona halkan waxaan ugu sidnaa dadka oo la soo raray xalayna roob iyo dabeyl heleen waxaan ugu sidnaa halkan raashin isugu jira sokor iyo bariis iyo saliid iyo qadar lacag oo qof walba inuu ku dhista aqalkiisii lagu wareejin doono si ay dhismooga u dhameystirmaan waxaan leeyahay dadweynaha reer Soomaaliland hay'adaha caalamiga dadweynaha reer Soomaaliland iyo ganacsatada ku horeynaya dadkaas waa dad jilicsan waa dad maatiya marka hore xerada Birjeex waxay u degeen baahi dhul lahaaneed bay u degeen marka hore iminkana tiibaan dhul u helay waa dadka aad u dayacan waa dadkeena ugu jilicsanaa qof walba wixii aad la soo gaari karayso la soo gaar dadweynaha intaas ka codsanaya ganacsatada waaweyn